عائشة صلاة داني أي ليدة هي أواوي وحاكميدا لبدا رجعوا كهر رئيس الصبح بل نبي محمد محيري عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتان ويا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها لبدا رجعوا الصبح كهر رئيا الدنيا يدحل وحيا له ويك خير بدين وحلا وح الدنيا يدحيا له هانتي مالا waxa wabiyaal yaala waxa aan dabaqayeys dul saarayno waxa aan hayno dhan waxa ka khayr badan labada ragco oo ilaahay dartiisa aan u tukanayno oo subxiga ka horeeya hadii marka sunnadeedii sida u fadli badatay maxaad u malaynaysaa waxa weeyaan faradkeedii oo waajibkaana maxaad u malaynaysaa fadiilada ay leedahay salaadani waxa weeyaan ru'yatullah ilaahay subhanahu wa ta'ala baa qofka laazimo oo joogtay ilaahay buu arkaya maalinta qiyaamaha محاك وين بدن نبي وحيري عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر إلهي بعد أركيسان مال انت قياما ضي حساد أركتان وحل أرك تدا حق إذا لسكا شبهيا ما هنكلنا أركي وحل شبهيا حق أرك تدا ضي حساد أركتان هبين أفريا طبنا هذا تشوجه وقف كل عريرين يان لأرك أيات إلهي مال انت قيامها وأركيسان فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا هذا أوداننا اللي إنك غالب نقن واللي إنك هرمرين صلاة الصبح جاية عصرك سماية ساسا النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام ما دام مؤمنين تو إلهي أي أمر يان أركيان مالنت قيامها أي النبي يقول لي صلى الله عليه وسلم والعمل كان عمل جليل ويا إلهي يقول هذا dadka raba ilaahay inay qiyaamo arkaano oo ilaahay u naxariisto ridihiisa helaano amalkaana nabigu baraarujinaya sallallahu alayhi wasallam fadaa'isha ay leedahay salaadan waxa kamid ah an al muhafiza ala salati as-subh ma'a al jamaa'a min atyab an-nas 'aishan qofka salaadan subhiga ilaaliya oo joogteeyo oo jamaacada ku ilaaliya waa qofka dadka ugu nolol fiican وأنشطهم بدنا جسمي أهان مركز اللي ينادنا مالين تعس وقفك أقول نشاطي في الفرعوني بدن وأنعمهم قلبا قلبي أهان مركز اللي ينادنا وقفك أقول فرحات بدن أو أقول قلبي قبضت كويج النبي قال يري عليه الصلاة والسلام النبي يقول لي هاي يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد marka qofku uu seexdo ayaa shaydaan 3 dabar ku xiraaya oo madaxa maqaafiyo dushiisa wuxuu saaraya uqudooyin buu ku xiraaya uqadkuna waa guntimo shaydaanku habeenkii marka seexati ku isticmaalayo way 3 dabar ayuu kugu dabraya oo guntimaha ah markaas nabigu yiri fa ida sayqada fadhakara allah in halat uqda haduu qofku hurdadii macaan ka badneed ka soo gilgisho ka soo kaco oo ilaahayna uu xuso oo adkaartii uu akhristo markuu qofku soo kaco xarkii iyo guntimihii lagu xiray mid baa furanaysa fa in tawaddaa in halat uqda haduu waysa qaatana mid kala go'day fa in salla in halat uqda hadii salaadii subxiga uu tukadana oo jamaacadii iyo khayrkii uu ilaaliyana kii saddexaad baa go'ay fa asbaha nashidan tayyiban nafs waxa waagu u bariya asagoo ah mid wanaagsan oo firfircoon oo waxa weeyaan tayyiban nafsi naftiisu ay diib tahay oo qalbigiisu qabow yahay oo qalbigiisu qanaaco leeyahay oo badankiisu firfircoon yahay ayaa waagu u bariyahay saasoo ku waa barist wa illa asbaha khabitha nafsi kaslan ayaa nabiga alayhi salaam haduu sida yeeli waayo oo xuduurka jamaacada iyo khayrka ilaalin waayo wuxuu waagu u bariyahay asagoo khabithu nafsi min nafxintiisu xuntahay كسلان أو وهسلو أو بلايا دول سارنتها حركيه كحرنا وساك الله سكاعي مركزو إسكت عدها ميلو أسعد ونقرنها وقف دمات سوي صلى الله عليه وسلم جماعة دي بعد عفت ساك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحى الله شيء قف سيحنيا وإلى قرحه أي كسر بحث إسكور دهية مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل بال الشيطان في أذنيه كاسي واقف وحويان شيطان لبدا دغود اوغو كاديي او اذنه شك من الراوي اما دغتيس الشيطان كو كاديي
waxaa marka la rabaa walaalayaal inaynu salaadan ilaalino nolosheena laga bilaabo maanta inaan wax ka bedelno tobanka bishaaro oo waaweyn oo salaada subxiga ay leedahay waa inaan ilaalinaa masaajidda salaada subxiga waa cidlo dadkii ku tukan lahaana ma aynan dhiman mana aynan guurin ee waa joogaan waa deegaanka daris bay leeyihiin salaadaha kale ay camiraan salaada subxigana masaajiddu waa cidlo waa in dhaqanka noocaas la bedelaa muslimiintu ciziya sharaf waxay leeyihiin marka salaada subxiga safka hore ay isku ciriirinayaan oo ciriirigu ka taagan yahay oo la camirahayo markaas cizigooda iyo sharaftoodu ay u soo laabanaysaa qoom hadaa rabti inaa ogaatid in diinta ay ka sii baaba'ayaan oo diin xumo ay ku sii socdaan salaada subxiga laga eegaa hadaa ku soo aragtay odayaal 4 iyo 10 iyo wax noocaas oo masaajid ku tukanahaya xilliyada kale la tukanahayo oo dhalinyaradii la waayay qoomkan waxa weeyaan diintoodii dhalinyaradii xambaari lahayd khadka way ka bixin waa maqay meesha dhalinyaradu ay salaada subxiga dhooman yihiin oo ilaalinayaana dadkaas waxa u socda nuur iyo iftiin iyo khayr iyo barako iyo horukac ayaa ka muuqda ilmaheena aan salaada soo xaadirino annaguna nafteena aan geyno sallallahu ala nabiyina muhammad allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز إنك على كل شيء قدير